Beentu waa xaaraan. Beenta dadka sheegana lama jecla. Beentu wax bay qaribtaa mooye waxba ma toosiso. Sidaas darteed bulshadu waxay ka wada siman yihiin in beenta laga fogaado carruurtan lagu barbaariyo in beentu ay tahay wax aad u xun. Balse iyadoo beenta laga wada soo horjeedo, haddana noloshu waxay dad badan ku kaliftaa inay sheegaan been. Halkan waxaa idinkugu soo gudbinayaa 4 calaamadood oo kuu sahlaya inaad ku garato qofka beenta kuu sheegaya. Kow waxay muujiyaan calaamado walaac ah. Dadka badanaa qiimeeya runta iyo daacadnimada waxa ku adag sheegidda beenta weyn, taasoo jir ahaan ku keenta culaysyo fara badan. Haddii ay calaamadahaas raaciyaan hadallo ama sheeko aadan ku qancin, waxaa suuragal ah in qofkaasi uu kuu sheegayo been. Walaaca beenta uu ka duwan yahay walaacyada kale. Walaaca uu muujiyo qofka beenta sheegaya waxaad ku garan kartaa qofka oo boobaya neefta ama dhidid degdeg ah oo ka yimaada, ama qofka oo taataabanaya wejiga ama dhaqdhaqaajinaya lugaha ama gacmaha. Calaamada labaad waxay sheegayaan macluumaad aad u fara badan ama aad u yar. Waxaa caadi ah in qofka beenta sheegaya uu ilaaliyo ama xadido hadallada afkiisa ka soo baxa, asaga oo ugu dan leh in mustaqbalka dhow ama fog su'aalo badani uga imaan karo arrintaas. Laakiin khubarada ayaa sidoo kale sheegay in dadka beenta sheega ay badiyaan hadalka si ay u muujiyaan inay kalsooni leeyihiin. Haddii qofku la wadaagayo macluumaad tiro badan, macluumaad iyo faahfaahin aadan adiguba weydiisan, waxaad ogaataa fursad ah in qofkaasi been uu kuu sheegayo ay aad u sareyso. Sababta dadka beenta sheegaya ay u badiyaan hadalka ayaa ah inay aaminsan yihiin in hadalka badani uu qofku u ekaysiiyo inuu furfuran yahay, iyaga oo ka rajaynaya in weji furnaanshaha ay u sahlayso inay dadka aaminaan. 3 waxay durbadiiba joojiyaan dhaqdhaqaaq oo dhan. Sheegidda been aan kalsooni lagu qabin in la rumaysto waxay qofka ka qaadaa degnaanta, balse dadka qaar ayaa sheega beenta iyagoo dhammaan joojiya dhaqdhaqaaqa jirkooda. Dhaqaaq la'aanta noocaasa markuu muujiyo qofka beenta sheegaya waxay ka dhigan tahay in maskaxdiisa ay isku diyaarinayso iska hor imaad ama dagaal inuu durbadiiba meesha ka dhaco. Haddii qof been sheegaya lagu qabto oo uu joojiyo dhaqdhaqaaqa oo dhan, ood aragtid qof meesha sidii u la taagay u suran, waxaad ogaataa inay tahay calaamad weyn oo ah in qofkaasi dagaal isku diyaariyay. Calaamadda afraad waxay tilmaamida gacanta isticmaalaan hadalka kadib. Waxaan wada ognahay badanaa dadka qaar markay hadlayaan inay gacmahooda isticmaalaan marka ay gudbinayaan macluumaadka ay sheegayaan, iyagoo u isticmaala inay wax ku tilmaamaan ama wax ku muujiyaan. Balse dadka beenta sheega ayaa sameeya ficil ka duwan kaas oo ah in tilmaamida gacanta ay ka dambeyso hadalka ay dhahaan. Qofku marka uu sheegayo beenta, maskaxdiisu way mashquulsan tahay, waxayna ka fikiraysaa hadallada ay alifayso, in la aamini karay in kale, oo mar walba macluumaad dheeri ah soo saarayso. Sidaas darteed maskaxda oo aad u mashquulsan ayaa sababaysa in hadalka iyo tilmaamta gacmaha ay isla socon waayaan oo hadalka ka soo hormaro tilmaamta. Haddii aad aragto qofka markuu hadlo kadib sii dhaqaajinaya gacmihiisa, waxaad ogaataa in qofkaas uusan sheegaynin hadal xaqiiq ah,